magaalada mustaqbalka ee riyada koox falaaga ayaa isku dayay inay ka adkaadaan shirkad lagu magacaabo Wickeda taas oo tijaabinaysa caruurta si ay u helaan dawo virus dila ah. Dhulka ka xiga waxaan aragnaa tareen hamuul wada, tareenkaasi maxaabiis ayaa ku raranda meesha laba baabuur ayaa bilab inay bursadaan. Mid ka mid ah baabuurtaasi waxaa wada George iyo sidoo kale Brenda, halka dhinaca kalena ay saaran yihiin Thomas iyo sidoo kale Vince. Brenda ayaa bilowday inay togato ilaaladii waday tareenka, isla markiiba gurmad ayaa dalbadeen. Koox ilaala ayaana soo baxay oo bilab inay rasaas ku furaan. Thomas iyo Vince waxay isku dayeen inay markaasi ay tareenka ay koraan, waayo baabuurkooda khalkhal ayuu ku jiray. Ilaana si wanaagsan ay ku guuleysteen inay tareenkan ay gudaha u galaan, halka George iyo Brendan iyada diyaarada aan duuliyaha lahayn ayaa markiiba bursatay, waxayna isku dayeen inay naftooda badbaadiyaan. Labada ragga qaybta sare ee tareenka ayay fuleen, ilaalo badan ayaana ka daba yimaada, isla markiiba tareenka ayay laba qeybood u kala qaybiyaan. Diyaaraduna weli waxay bacsanaysaa George iyo Brenda iyagoo weliba keenay meel nabad ah. Askartii markii diyaaradda ay kasoo degaan si ay labadooda u qabtaan, isla markiiba dabin ayaa lagu qabtay. Koox kale oo falaaga oo sidoo kale halkani jooga ayaa markiiba qabtay duuliye, ayaana habad dhafoorka looga saaray. Dhinaca tareenka ku laabo jabhado badan ayaa sidoo kale wadada ku dhuumanaya, waxayna bilaabeen inay markani tareenka ay qayb ka mid ka saaraan. Askartu waa ay soo bursanaysay, halka Thomas iyo Vince ay bilaabeen in diyaaradda ay ku xiraan qayb ka mid ah tareenkaasi. Si wanaagsan waa ay ku guuleysteen, diyaaradda ayaana bilowday inay unug ka mid ah tareenkaasi ay qaado, isla markii gudaha u soo galeen containerkani maxaabiis badan ayaa ku jirtay. Thomas waxa uu bilaabay inuu ka baadi goobo saaxiibkiisi Mino, laakiinse kuma uusan jireen. Vince ayaa bilaabay inuu kooxda khudbad u jeediyo, isagoo weliba u sheegay hadafkooda inay isdifaacaan, waayo dadka jirkooda waxaa lagu duraya virus dila ah. Kooxda falaagadana waxay rabaan inay markab weyn ay hagaajistaan si ay uga tagaan dhulkani. Thomas ayaa mid ka mid ah wiilashii waxaa weydiiyey macluumaad ku saabsan inuu wax ka ogyahay arrinka saaxiibkiisa, waayo waxaa jirta magaalo. George waxa uu sheegay inuu halkaasi dhowr sano lagu hayay magaaladaasi, waxaana loo yaqaan saaxiibkiisi ayaa arkay kuwaas oo diyaar u ah inay sidoo kale ay isaga raacaan. Dhanka kale waxaan aragnaa wiilkii lagu magacaabo Minho, hadda waa uu toosay, waxa uu bilaab inuu gargaar dalbado, laakiinse ma jirto cid isaga u jawaabto oo uu bilaab inuu jahada kale u orto. meelwada albaaba ayuuna soo galay, makhluuq ayuuna meesha ku arka oo uu bilaab inuu naftiisa la baxsado. meesha waxay tahay xarun unugya oo xirxiran, isla markiiba jirkiisii si xoog ah ayaa loo qabtay, waxaana la inoo daaqaadaya in Minho dhabahantii uu sheebaar uu ku jiro. waqti kadib kooxdu Thomas waa inay ka gudbaan tunnel aad u madow, waxayna halkaas ku arkeen makhluuqyo u eg sida zombiga. kadib baabuurkooda meesha waxay ku arkeen makhluuqyo aad u tiro badan oo baabuurkooda hareeyay, iyagoo xitaa bilaabeen inay baabuurkooda meesha kula baxsadaan. laakiinse intay ordayeen baabuurkoodii shil ayuu meesha ku galay. nasiib wanaagsan baabuurka ayay kasoo baxeen, iyagoo weliba arkay kuwo aad u tiro badan oo dhinacoodii usoo orda. Fayban waxa uu bilaab inuu mid u togto, balse aad ayay u tiro badnaayeen, lugahooda ayayna reebeen inay ku baxsadaan. isla markiiba baabuur kale ayaa meesha yimaaday, cid kale ma ooto, waa George iyo Brenda. sidii ayayna u gurmadeen. Brenda ayaana bilowday inay dhowr xabad ay ku dhufato si ay iyagoo uga haran, waxayna maareeyeen inayna si nabad ah uga soo baxaan tunnelka. markii ay jidka soo gaareen meel fog ayay ka arkeen The Last City. George waxa uu kooxda kale ogeysiinaya in magaaladaasi ay rabto inay dhisato gidaar aad u weyn si aysan dadka kale usoo gudbeen. hogaamiyaha kooxda Wicked waa gabar lagu magacaabo Ava, taasoo u muujinaysa muwaadiniinta inay hadda aysan lumin rajadoodii ugu dambeysay. muwaadiniinta hadda rajadoodii waa ay ka dhamaatay, waxayna rabaan inay dhisaan derbi aad u weyn, kaasoo ah derbiga xayndaabka. Ava waxay u sheegtay in seeramkii ugu dambeeyay Minho laga qaadayo, waana rajada keli ee hadda dawada lagu heli karo. muwaadiniintu waa ay tideen inay hadda lacag kale ay bacshaan. wadahadalkooda waxaa kala goysay gabar lagu magacaabo Teresa. haweeneydaasi Teresa ayaa bixisa hadal ku saabsan rajo iyo sidoo kale nafuri, taasoo ka dhaadhicinaysa xubnaha guddiga inay sii bixiyaan lacagta kharashaadka. kunoqo dhinaca iyo Thomas weli waxay bilaabay inay ka gudbaan xaafadaha isku raranka ah si ay uga baxaan derbiga, iyagoo weliba caawimaad ka dalbanaya dadka magaalada. Thomas kortiisa taatu ayaa kaga jira, isla markii uu dhalaalay waxaan ogaanaynaa inuu baaq u dirayo kooxda Wicked halka ay ku sugan yihiin. kooxdii ayaa waxay bilaabeen inay magaalada kusoo dhex dhuuntaan, ilaaladii ayaana bilaab inay meesha ay rasaas ku furaan.
ilaaladii markiiba waxay bilaabeen inay dadka rayidka ay rasaas ku furaan taasoo keentay in boqolaal dad ah ay qaraxaasi u dhintaan kooxda Thomas waxay isku dayeen inay baabuur ku noqdaan laakiin saraakiil wejiga daboolna ayaa iyaga hareeyay isla markii waa la qabtay sidii ayaana baabuur lagu saaray waxaana la keenay meel ay ku noontaan dad dahasoona George ayaa bilaabay inuu mid ka mid ah raggaasi uu la dagaalamo ilaa markii dambe Brent ay ka qabatay wiilkaasi feesmaasiga ayuu iska saaray waana lagu magacaabo Jilly tan oo waliba loo maleynay inuu isaga waqti hore u dhintay waxaana uu sheegay inuu dhinacooda uu yahay sidoo kale uu tilmaami karo wada si qarsoodi lagu gali karo magaaladaasi Jilly waxa uu barayaa kooxda hogaamiye lagu magacaabo Lawrence kaasoo wejigiisa qayb ka mid ah uu ku faafay viruska daddiisana 24 saac serum ayaa ku jira kaasoo ka ilaalinaya inuu viruska jirkiisa ku faafo Lawrence waxa uu markaas u soo bandhigay qaab uu ku dhex dhuuman karo magaalada balse shuruudu waa inuu markan uu caawiyo kooxda Thomasna waa u ogolaaday darteed waxa uu sheegay Jill ayaa kaxayn doona iyagoo sii maraya bulacadaha halka kuwii kalena waa inay aaminsan ay ku sii joogaan ka hor inta aysan tageen habeenkii ugu la kulanto minho ayaana bilaab inuu Trace uu weerar ku qaado isagoo bilaab inuu aflagaaday laakiin markii ilaalad ayaa ka soo gaaraya balse waxa uu ku guuleystay inuu bir meesha taale oo meesha ku sidii ayaana Trace xarunta looga kaxeeyay waxayna ogaatay in hadda seerumkii gabadha lagu duray uu fashilmay Trace oo meel kale iska taagan waxay aragtay Thomas oo ku dhex dhuumanaya dadka isla markiiba Thomas ayay soo dabagashay laakiinse Jill iyo kooxdiisa ayaana markiiba iyada gadaal ka hareeyay sidii ayaana lagu soo kaxeeyay waxaana la keenay kaniisad duugaasi su'aalo loo weydiiyo Trace waxay kooxda u sheegtay minho uu ku jiro xarun ay markaasi joogaan 28 maxbuus oo dheeriya dariiqa kaliya halkaas ku tagaan waa in fara kaliya lagu galaa in waxa uu soo jeeday waa inaynu farta ka jabna iyadoo si aynu gudaha ugu galno balse Thomas ayaa diiday waxaana markaas laga dalbaday inay kooxda oo dhan ay ka saarto raadraacayaasha kaga jira qoorta Trace intay shaqeynaysay waxay dareentay in Brent ay ka duwan tahay kooxda inteedii kale inta aan gabadhaasi meesha laga kaxeyn Trace ayaa bilowday inay hado mid ka mid ah dhiigii ku yaalay faashada Thomas wiilashu iyagoo markan askar iska dhigay ayay dib Trace xarunta u keeneen ilaalahan ayay u dhaqmayeen lagama sheekin qaybta hoose ayayna soo galeen intii qaybta hoose ku jiraan Newt ayaa bilaab inuu qufo Trace-ana waxay dareentay inuu adu ka qaaday aysamka ayayna bilaab inay markaas ay jabsaan saddex ilaalo ayaa dareemay saddexda ilaalo ayayna meesha ku jireen dhammaan maxaabiista qeybaha hoose ayayna fasaxeen waxayna markaas ilaa hadda badigoobayaan Minho Trace computerka ayuu hubisay iyadoo weli ogaatay in Minho hadda loo qaaday sheebarka dhinaca kale ee dhismaha halkaas gelitaankeedu aad ayuu u adag yahay balse Newt iyo Thomas ayaa waxay ku kasbeen inay Trace halkaas u gudbiyaan intay wiishka raacayeen waxaa soo galay madaxa xarunta waani lagu magacaabo Johnson hawna bilaab inuu Trace uu la sheekaysto isagoo weliba raggaani ka shakiyaya balse markii ay meesha ka soo baxeen Thomas ayaa wejiga iska siibay isagoo Trace ku qaylinaya ayaa ka dawiyay mid oo qori ku qabtay waxay kadibna ilaalo badan ayaa meesha imaaday waxayna bilaabay inay Trace mindi ku qabtaan ol ayaa kaligoodii lagu xareeray oo ay wiilashii Trace ku amartay inay meesha ay ka baxsadaan qeeladhaantii dhismaha oo dhami ayaana yeertay geerina dadka rayidka ayuu rabay inuu qaybta hoose uu ka saaro garaashka ayuu keenay isagoo rabay inuu carruurta oo dhami uu bas ku qaado si u badbaadiyo Brenda ayaa bilowday inay baabuurkiisa hawliga ay u kaxayso Thomas iyo Newt markaasi Ava ayay meesha ku arkeen balse Johnson yaragiis ayaa yimid oo rasaas ku furaya wiilashu ugu dambeyntiin waxay bilaabeen inay waardiyaasha ay ka ordaan iyagoo weli raadinaya saaxiibkooda reebaka dhexdiisa Minho ayaa qaylada maqlay birti yareed ayuuna la soo baxay oo ilaaladu ku tooriyay markuu halkiisa nisaankii uu ku dilay waxa uu isku day inuu meesha ka baxo labadoodii ilaalada ayay bilaabeen inay markaas xitaa iska difaacaan iyagoo meesha bam ku tooraya si lama filaan Minho sidoo kale askarta la dagaalamay ayaa saaxiibadii dib midoobe aad ay u farxeen oo ay rabeen inay si wadajir ah meesha uga ordaan xarunta oo dhami qeeladhaanta ayaa yeertay albaabada oo dhami ayaana la xiraya on sirahayna bilaab inay markaas ku dhuntaan halka ilaaladuna ay meesha u isticmaalayeen si ay u jabiyaan dhalinyaradu ma haystaan ikhtiyaar kale oo ah inay daaqada ka boodaan barkad hoose oo ay biyo ku jireen ayay ku boodaan isla markii barkada ka soo baxeen askar badan ayaa hareeyay keense markiiba Jill ayaa badbaadiyay oo rasaas ku furaya wadadana Brent
ayaa maraysa balse kaacina la ayaa weli bursanaya weli waxaa jira baabuur badan oo ay falaagadu leeyihiin oo aad u bursanaya ilaa markii dambe ay ku soo dhaceen wadadii oo dhami oo cadowga xiraya Brenda ayaa markiiba olol korka kor u ruday Fiber ayaana waxa uu bilaab inuu wishka uu ku qaado baska gabadhi ayaana ka caawinaysa sida ayaana baska lagu qaado ciidamaduna waxay bilaabay inay rasaas ay ku furaan balse miisaanka baska ulus awadi ayaa waxay keentay inuu baska meesha ka soo dhaco dhulka ayuuna ku soo dhacay ilbirqsiye kadibna waa uu istaagay ilaahay galadiisa qofna halkaasi dhaawac kama uusan soo gaareen dhanka kale Teresa ayaa isticmaashay faalsaday hore u soo hadaysay baris ugu samayso isla dhiigga Thomas hin ogaatay in dhiiggiisu uu yahay dhiigga saxda oo hadda dawada ku jiro kaliya isagoo viruskani ma dabiibi karo oo kale laakiin isagoo dhami ayuu meesha ka saaraya tani Ava ayay siinaysaa rajo kale oo badbaada hadda waxay rabaan inay gacanta ku soo dhigaan Thomas Vayban ayaana dhammaan caruurtii geeyay xaafadaha iskurarankaasi halkan ugu dhuntaan Nick's badali rabe ayaana waxa uu ku dhawaaqay in caawa magaalada oo dhami aynu aniga dib ula wareegayno Lawrence ayaa baabuur xamuula qarax oo dhami ku qaaday waxayna bilaabay inay u cararaan dhanka magaalada baabka magaalada kooxda amniga waxay isku dayeen inay baabuurkan eliya laakiinse dhammaan systemkoodii oo dhami ayaa la jabsadaya olihii ilaaladu waxay isku dayeen inay rasaas ay ku furaan laakiinse arrinkaas cidna ma joogin meeshii qarax aad u weyn ayaa ka dhashaya kaas oo halkii ku abuuray burbur aad u weyn dolol aad u weyn ayaana sidoo kale magaaladan ka furmay dadku u ogolaanaysa inay gudaha u galaan wacdi weli gudaha ku jiray oo news iyo Thomas ay ka mid ahaayeen waxay bilaabeen inay iskariyaan biliska ayaa magaalada oo dhami wareegaya Thomas ayaana wacay Brenda isagoo weliba u sheegay in iyadu ay meesha nafteedii kala badbaado balse Brenda waa ay diiday isla markiiba George ayaa diyaarad helicopter la yimaado oo dhammaan caruurtii oo dhami ku qaadaya si kastaba news xaaladiis aad ay u sii xumaanaysa viruska ayaana ku sii faafayay Mino iyo Jill ayaa waxay la baxsadeen serumka Thomas waa uu jid inuu saaxiibkiisa ka tago waxaana bilaabay inuu qaado Teresa ayaana waxay ku dhawaaqday qofka ugu muhiimsan ee kooxdaasi waa Thomas ayaana ah qofka cudurkani kaliya badbaadin kara saaxiibkiisana dhulka ayuu ku dhacaya ilaa markii dambe saaxiibkiisa uu bilaab inuu isbedelo Thomas ayaana bilaabay inuu la dagaalamo saaxiibkiisa weli miyirka ayuu kabay mana uusan rabin inuu Thomas uu dilo isagoo ku dhow inuu dilana markiiba biskoolada ayaa laga tuuraya jirkiisa ayar ayuu feerasku ugu sii faafiyay wax yar kadibna Thomas ayaa la dhaawacay